استعمالها شالينا way أقولت ما أنتنا وأقولشها برين وأقولانيسا بس بريها ضمبه ودن كان درس كأنها إثيوبيا أتكلم قليسين الرما كسب سن بدأ سكما هايسن أنجي إثيوبيا إني بدأ جارتو سكما هايسن دجال نقد حياة أنجي إثيوبيا أو صوماليا إثيوبيا أي بدأ جديدا تاي معه وحنسكو هايسن وحي تاي إثيوبيا سيداي بدأ كسو جاري dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Itoobiya hadii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynayna waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerinin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda Ethiopia ee dariska nahay shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed darisaan nahay ismaanaan dooran shalayna waan ahayn maantana berina waan ahaan doonaa laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkil qabin laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris ay mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin haddana ma dhicayso adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dawladuhu ka dhaxeeya oo mujtamac adduunka uu ku wada nool yahay Soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeena isfahm weynay مثلا annaga iyo Kenya ayaa bari xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduudii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay marayso waataan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaan loo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayaa sidaas daraadeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Ethiopia in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaalo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la macaamilaan maadaama walaalaha Soomaaliya ay macaamilkooda ogol yihiin laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan ha iska iloobeeno ciidan badan Soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan Soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer Ethiopia wax problema oo ku qabna ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada macaamilno wixii de kalsooni iyo isii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag u si dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta Soomaaliya intaas ayay diyaar u la tahay